السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت السود وهذا إن شاء الله هدي الله هذا كورس ذي أي نص عطاء كبرنا إن أي تأسيسيال كا مركب وحن ربع إن سيدان هراء إذن كوجت المامي هراء هربع بدن يوح بدن كسر شيء كينا وبرهامج كمارتكو سابسن لكن وحن ربعنا إن إذن سيش جو مركب لقيت تقول إن كورس ذا أي تأسيس كورس ونكمل ده waxaynu baranayno oo maadooyinkeenu baranayno oo maartay diploma inoo aha koorso kamid ah marka laga tago koorsadan waxay leedahay imtixaan international oo aad gali kartid marka waxaad gali kartaa hadhow imtixaanka loo yaqaano CompTIA ITF plus waxaana bixisa CompTIA baa bixisa ama CompTIA baa bixisa marka wax weeye CompTIA waa shirkadaha ugu waaweyn caalamka shahaadooyinka IT-ga bixiya in fact dadaysan ahayn shirkadda ugu weyn marka shahaadooyin international ay bixiyaan shahaadooyinka caalamka dhan ayaa aqoonsan marka ITF plus kaliya ma bixiyaan wax badan ay bixiyaan ITF plus waa shahaadada ugu horeysa qofku maartay IT-ga uu ka bilaabo ay tahay inuu qaato waana shahaado international ah ifaan marka international ku leeyahay ma ahan wax oo lagu dhahayo okay xirfadkaaba soo dhigtay xirfadkaaba annagu haddaan Europe joogno ma aqoonsanin iyo waxa ma aha wax weeye macnaha waa aqoonsi guud oo caalamka dhan ay haysataa marka ITF plus waxa way koorsadan marka dhamaysid waxaad awood u leedahay IT essentialka marka dhamaysid waxa awood u leedahay inaad ITF plus ka aad gashid ayaad awood u leedahay inkastoo ujeedkeenu uusan ahayn ITF plus galno laakiin macnaheedu waa laba faa'iido macnaha waxaan baranaynaa waa IT essential laakiin macnaha fursad baad u haysataa inaad gashid imtixaankan haddaad rabtid maartay imtixaan international lacala rabtid inaad gashid ma garanaysaa marka taa marka taa waaye shahaadooyin kale bixisaa waxa weeye network plus baa jira waxa jira A plus baa ka horeysa tan A plus baa jirta network plus baa jira maxaa la yiraahdaa waa badan yihiin marka saas marka barnaamijyada yihiin marka IT essentialka koorsadan marka aan baranayno marka saasay marka macnaha muhiimad gaar ah u leedahay runtiina waa koorsada ugu muhiimsan oo ay tahay qofku inuu dhigto marba hadduu doonayo IT inuu barto saasaan uga bilownay iyada waayo haddaad ka boodid iyada waxaad arkaysaa qof jaamacad meeyay ama maaragtay muddo ku shaqeynaya IT-ga oo IT-ga wali aan fahansanayn sida uu maaragtay waxaan basiskiisu u yahay waxaana uu isku xiriirsan yahay programmer fiican ma noqon kartid adoo maaragtay IT essential si fiican u aqoon network fiican ma noqon kartid network engineer ma noqon kartid database ma noqon macnaha wax way isku wada xiran yihiin waa hal line wuxuu waa hal shay wax la wada baranayo kadib aad takhasuska aadi kartaa marka asaasa marka koorsadan ay muhiimadda gaarka u leedahay marka casharkan waxaan rabnaa inaan ku aragno functionalities of computer ayaan rabnaa inaan ku aragno macnaha shaqooyinka guud ee computerku qabto hore waxaan usoo qeexnay computerku waa maxay ayaan hore usoo qeexnay marka iminka waxaynu rabnaa inaan aragno functionalities waa maxay shaqooyinka waaye of computer ee computerka shaqooyinka computerku uu qabto marka horena waan kasoo taabanay laakiin marka iminka waxaan isku dayaynaa inaan si guud aan u taabano as always inaad xasuuso inaad maartay note qaadatid waxaan ardayda inta badan kula taliyaa in ardayga casharka ama hafada ama adkaado inuu wuxuu qoraala ka sameeyo oo warqad iyo buug qalin buug soo qaato oo wixii ka qoro taana marka waxay keenaysaa wax maskaxdaada inay galaan oo maartay qayb ka noqdaan haddaan marka fiirino si guud u fiirino maxaa yiraahdaa computerada ama maartay in digital computer walba oo digital horta sida digital iyo analog waa inay kala fahantid soo digitalku waxay ku shaqeysaa 0 iyo 1 ay ku shaqeysaa korontada damisteeda iyo daariteeda markii koronto la daarayo 1 way markii la damiyo waa off marka 0 iyo 1 kaas ayaa waxa laga sameeyaa wax walba aad arkaysaan image ah oo hadda idin muuqdo 0 iyo 1 ay ka samaysan yihiin marka computer walba hadaan u fiirino oo digital waxa uu qabtaa shaqooyinkan nooc hore jirta analog oo kala analog si manual ina uga shaqeysid buu ahaa laakiin kan digitalka manual ma aha stepka koowaad waxa weeye computer walba oo ay tahay inuu ku shaqeeyo ama computer walba shaqooyinka uu qabto oo digital ah shanta shaqo afarta shaqo ayaa base ah wuxuu qaataa takes data as input xog buu qaataa takes wuxuu qaataa data xog as an input si input ahaan way macnaha input waxa raadada wax markii meel la gelinayo kale markaas salahan rooti ba waxaad gelisay burba meel gelisay rooti ba hadhow kaaga soo baxay marka input waxa meesha gelinayso foornada gelinayso waa rootigii
marka gelitaankaas input la yiraahdaa. Marka computerka waxaanu gelinayno waa xog ayaynu gelinaynaa. marka computerku wuxuu qaataa sidaba any digital computer wuxuu xoga ayuu qaataayo ogol yahay inuu qaato. Data xagee ka qaadan karaa marka way su'aashu keyboard ka qaadan karaa. Hadda keyboardka qoraalka marka qortay guduhu galaya Soomaa. Hadda mouse-ka oo kale mouse-ka marka ku tilmaamtay computerka oo aad meelna ku dhufatay click dhahdid yani mouse-ka tilmaamtaadii waay. Microphone-ka oo hadda isticmaalayo codkaygii ayuu maartay computerka gudihiisa gelinaya. Marka computer walba wuxuu qaataa input ayuu qaataa. Step-ka labaad oo ama shaqada labaad oo computer walba qabto waxa weeye stores wuxuu kaydiyaa the data xogta ama instructions ama rada in its memory wuxuu ku kaydiyaa maskaxdiisa and uses them as required wuxuu u isticmaalaa sida hadba loogu baahdo ayuu isticmaalaa. Marka memory-gu maskaxda rasmiga ahayd ma aha markaas ku leeyahay computerka tan waa memory waa xasuustiisii oo kala waay laakiin maskaxdii ma aha. Maskaxda waxa ereyga u isticmaalno waa processorka ama CPU. laakiin marka af Soomaali ahaan darabna inaan u sharaxno the memory baa wax noqonayaa waa xasuusta computerka waay. Salahan memory waxa ku fahmaysaa computerada kale soo memory card soo mobilada memory card-ka igu shubiyo memory card-kayga iyo marka memory-gu waa meel wax ku kaydinaysa weey intaas aad ka fahamtay Soomaa. Marka memory card-kii mobilada ay san jirnay waxa uu kaydin jiray kana wax uu kaydiyaa laakiin sometimes si ku meel gaara ayuu u kaydin karaa si rasmi ana uu u kaydin karaa. Marka memory-gu waa ka adu memory-ga waay. Marka memory-gu meel wax uu kaydsado waay. Marka computerka shaqada labaad uu qabto waxa weeye inaynu wax ku kaydsan karno. shaqada saddexaad processes data and converts it to useful information. Processes wuxuu ka shaqaysiiyaa the data xogta and converts wuxuu u bedelaa into useful information xog macna leh useful macna leh information xog macnaheedu qiimo leh ayuu ka dhigaa. Marka computerku shaqada saddexaad uu qabto waxa weeye inuu process gareeyo ama isku dabarido ama ka shaqaysiiyo xogtii aanu gelinay. Ilaa xogta computerka iskama aanan gelinayn sawiraad soo qaadatay camera soo qaadatay waa gelisay qoraal baad maartay keyboard ka qorto waa ku xareysay wixii iskagama aadan qorayn meesha laakiin waa rabtay inaad ku shaqaysid Soomaa inaad isku dardartid inaad kala jirtid inaad habeysatid macnaha xogtii iyo process gareyn karaa computerku shaqadaas uu leeyahay awooddaas uu leeyahay. ugu dambeyn shaqada ugu dambaysa computerku qabto waxa weeye generators wuxuu soo saaraa the output ayuu soo saaraa. Output waxa laga wadaa natiijo wax soo saar. Foornada marka la gelinayo saanu tilmaamnay roodhigi ama maarta burki markaanu gelino oon diyaarinay waa input-kii waaye kadibna waxa inoo soo baxaya waa lagu shaqeynayaa waa la gubayaa oo laga shaqaysiinaya taa waa processing-kii. kadibna waxa weeye waynu soo saaranaynaa output baa inoo soo baxaya rooti diyaarsan ama roodi saad u taqaanid aynu cuni karno ayaa inooga soo baxaya. Marka output-ku waa wixii inoo soo baxaya. Marka computerka output-kiisu wuxuu noqon karayaa wuxuu noqon karaa dhalada hadda u jeedid oo kale monitorka oo kale shaashada oo kale waxay inoo soo saartaa hadda shaashada hadda computerka ama mobile hadda ka daawanaysa ama waxa ka daawanaysa macnaheedu waxa hadda ku soo saaraysa soo ma aha wixii computerka ku jiray ama dhalada ku jiray ama mobile ku jiray ku saaraysa ya mobile laftiisu waa iska computer yar. sidoo kale qaab waxaan u soo saaran karnaa printer oo kala printerku waxa weeye waad la socotaano dee qoraalkii hadda qoraalka qoran ayaan daabici karaa. Marka printerkuna saas ayuu iyo xogta inoogu soo saaraya. Marka waxaan rajeynayaa inaynu si fiican isula fahanay shaqooyinka computerku uu bini aadanka u qabto ama bulshada u qabto inaan si wanaagsan isula fahanay. Waa Engineer Abyad waan ku salaamayaa as always meel yar oo calaamad su'aal ku qoran tahay jirta marka wixii su'aala calaamad su'aalka hoose ayaad ku soo qori kari doontaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waan laga soo jawaabi doonaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.